hadda waxaad moodaa inaynu ka gudubnay qaybtii labaad waxaynu u gelaynaa qaybtii saddexaad oo ahayd ilaa 1960 ilaa iyo 1992 intii u dhaxaysay taasoo markaa aanu u bixinay halgankii guushii iyo kala noqoshadii qaybtaas ayaynu hadda bilaabaynaa waxaan jecelahay markaa inuu cali ugu horraysiiyo heestii ahayd furunturootay iyo ujeedadeeda ayadoo dadku uu iswada dhaafsan yahay oo ay doorashadii isku soo wada sheegeen ayuunbaa reerkii ilaah u soo dhacay saqa dhexe wixii maxalaju xabuu kusoo ka dhex qaaday inaana intii cadaysayna markooda hore isheetay unbaa wada sacabisay waxaana jiri jirtay dee heese hore ayagu maynahay heesihii wadaniga ah unbaa la qaado dushua wadailooday nin waliba markaa allaylehe ila dadku wada madax noqon maayo ya in alaali intii aan ka qayb gelin baa caba dhacday ayaaba ugu buuqda soo sacabisay dabeedna waxaa jiri jirtay ninka jaamiciga ama mutacalimka ahay ayadoo dilitaasi gacanta qaban shaqa lama sii jiro haweli wada markii ay tobantii dhalatay ayaa fikiro sheeko beloola dhacday oo halku dhegaha uu sameeyey cabdillaahi caabid baarax ayaa 61 ugu tegey asagoo xafiiska privacyka ka shaqeeya mulka annagoo riwaayadda ahmiladeena wada markaasaa luwar cabdillaahi u balwar waa cabdillaahi baarax iyo suldaan rashiidka oo markaas sudaahay oo karaali u ah meesha karaali ka cabdillaahi caabaa la sartaamay oo fadhiisanayo waxaan isleelaa LBC last bay certificate lagamaba yaqaan baxagga sidaasaa la geysay meel mushahaaro lagu qaatay iyo fajka iyo qootar iyo ma jiraan LBC baa aniga mustafiya xamuga tagan meeshu waa xafiiska balaa isaga lacag qaadanay mushahaarada cabdillaahi cabdi baarax baa wuxuu yidhi war meesha wax kale ma jiraan maxaa taqaan ma jirta waa ayaa taqaan ayuu bixiyey kii baa igu soo dhacay markaasaa hadda bal nimankan taabiciinta hala shaqo geeyo heesta taasi uga soo haday wuxuu ku taamay in dadku talaayo in loo talaabaan tiro ku goynay maxaa taqaan ayaa taqaan turunturoodkoo ku tallaabsan weynoo dhac taladii sheegtoo lunta ayaa ee maxaa taqaan toobiya weeyaa lagu tisqaadeen maxaa taqaan waa loo tartamayaa ee maxaa taqaan odaygii intaa u ka hel markaasi waxaa loo xijaabinaha halla ururiyo 3 bilood halaha galeen dabeedna nin waliba wasaaraddu u soo bartay hataw markaa turunturoodkoo kubtay saasay ku soo baxay waana heestii ugu horreeyey anugu tobanka waa lagu daray suuqiyo weynow maxaa taqaan taladii boobtee maxaa taqaan tuutaad qabtaaye maxaa taqaan intay soo yaaceen qoladii guddihay isaasi yahay meegoo shara ayaa laka goy alcado waxay dadii kala dhintay inuu hagaajiyey wixii dadku idin lahaa baan la idin leeyahay maxaa ka garanaysaa bahasha ila dawladii lama taqaanin dadkuna ma yaqaano guusha walahi ma Soomaaliya ayana ma yaqoon dhibaata intaan ku tartade markii jamaaciinta oo dhan loo yeeray ee la yiri waa kuwii halkaa weligood joogay baar fayaad u joogi jiray shaqaha la siiyo waxaa la yidhi labada weli shabeelle iyo jubba soo sameeya oo balaan ku soo sameeya siday Soomaalidu ugu noolaatay toorada jiray dabeedna waqti bay qaadatay waa balaan oo waxa leeyahay dalooligii iyo biyo subkii sidoo yahay iyo sida inta la kala sareeyay dhulka iyo sida loo qoday iyo waxa lacag ku baxaysa iyo wixii mudday qaadatay markay muddo qaadatay ayaa dabeedna aan siyaad barana waa raagsaday dabeedna waa kii kulmiye u yeedhay kulmiye u yidhi nimankani wuxuun badinka waxa lagu diidayay oo shaqada u timaamay wuxuudu waa dubu dhacay inaga daayo dabeedna waa kii tallaabsaday ee dabeedna yidhi inoo tallaabi waa keena tuulka 1 2 3 4 5
tallaabsaday waa kii dabeedna yidhi cagafcagta soo mariyo soo jeexa dabeedna waa kii daadkuuna qaadeen waqooyigood raggii lacagta gurayay baan anigu ahaaye lacag kaalay dunidii baa ku jabtoo dunidii oo qaxoontii labadii weyba dhexdoodiiba daad baa qaaday dee lacagta soo guro markaasaanu hargeysa kumitiga xafiiska qoreslaam ka shaqaynayaan ahaado dee markaasaanu lacag gur siya dadkii qaxoontii dee waa kii taana daad qaado nimankii uu isugu waayay intii ay macalimiinta wax soo samaynaysa markaa kelimada waxaa dhacday markaa anigu waa sii lexday haddana odagaysa la jirno afrishaana kuwiya moogtahay markaan afrishaanka macneeyey markaan soo baxay buu igu yidhi calool waxaanu ku soconay maxaa taqaanaaye waxba jari waayo nimankii jaamiciinta ahaayo waxaanu ku wadaynaa maxaad aaminsan tahay markaasuu dhan walba isbaarunta maxaa taqaanti waa bedelay buu yidhi maxaad aaminsantay baanu ku shaqaynaa dadkaan aaminsanaan ku dhiibinaya hadda waa qaadaabta horaba waxba taasina taasi markii intaasi dhacday markaa hore sidaa digayso surururutay wuxuu waxay nooga taabtay wixii markaa dhibaato isaga ka qabsaday xaggii xukunkii markaa jiray kaga yimid xali markaa isma dhiibin wuxuu tiriyey oo alifay riwaayadda la yidhaahdo indha laga baqaa ilaah bay ku yaalin iyaduna markaa bal wixii kala kulmay iyo ujeedadeedu waxay kusoo ururteen weydiin markii lay xidhay hay waxba yeelaya lama qasay ciladiiba qarin waaye indhaha ku dhoodu waamade intii kale aniga ila mid ahay danbaabay noqdo waaye sidii waraabaha ayaanu damiyiga gud oo ka irbada taalo waarkii laakiin magaalada leelka badan marka la soo galo huduu dambay ku markaa waxaa dhacday adigu anigii odaygaas miishaaniga waxaa isku sheegnay waa kii lawada xiray dadkooda markaa waxaa loo jeeday in uu wax kala garadkooda kaxeeyo waa nala xiray wuxuu yihi bal ninkana aan kasoo yaro saaro meel geeyo wanaagsan oo sarfeyska geeya buu riwaayada samey riwaayadii baa siiyey riwaayadii aan tirayay ina laga baqaa ilaah bay ku yaalin baa la yidhahdaa markaa markii la eegay wuxuu yii waxaa laadiya wixii ka qayb galay riwaayaddaas ka ugu yari waa isbaal rag iyo dumar qaarna ciidankaa ku beeriyo xooga qaarna asluubta qabiilayada geeyo iyo hablihiina midka shaqaynaya gawli ayadana haddaan waxyar idinka taabto waanay u haydo de waa la kala waay marba magaceeda riwaayadda waanu bedelay 3 bilood baa wax walba la rasiyahay mar waxaa la yahaa nin la tumay kala sita marna waxaa la yahaa waa la furay uushi marna indha laga baqaa ilaah bay ku yaali markaa heestaa indha laga baqaa ilaah bay ku yaalin ayaa baratay ayaa ka mid ahayd arrin mariya wuxuu adduunyada rag badan baa ambaqaaday taladu hirtarkii abaabulay ololaha olaaday aqaladiisii baaliin ood baa dhex taalle aayar adimada dhig aayar kuwaad kee dhulka aayar oogada hanaga korina aayar indha laga baqaa ilaah bay ku yaali heesha waxay ficantay marka lagu qodaynayo wuxuu yidhi eebadii aan shisheeyaha u afaysanayaan afka qoriga taladiisu waa looma aayaan haddii aan ogolay quushi gumaysiya ma eriyeen aayar awoodda iyo xoogayda ee aada noorsan maayaan adimada dhig aayar ku adkeen dhulka aayar oogada hanaga korina aayar indha laga baqaa ilaah bay ku yahay markaa anigana sidaas u qabtay waxaygio sidaas ku baabiyey riwaayadii dambeed oo kuwii ka qayb galana uu shaqo geeyey xasiraawina wuxuu ku baxsan waayey riwaayadiisi ayadoo la fasaxay oo la xaafiday oo la hala dhigo ayaa la qabsoo asaga ila la xel marka inamadii iyo hablihii xaafidaa ayaa suuqa geliyey kaa aweed baa asagala lagu xelo laakiin suuqay gashay riwaayadiis tan mid lagama maqan ilaa maanta xabad lagama maqan asagun baa qaatay laakiin wuxuu ismaal mina mara axmed salaam markii maalif loo waayey ayaa axmed salaam bidda suuqa laga soo qasbooday aduu loo xataa ismaal asna askarta mau ka xalaa muuqooda markaa waa lacag iska qaada xidhiglo dirays baa qaadana maalif meesha ka noqo markii asuuta lagu laalaabiyadaasa muddada maalifka ahaa kooxdaana baaba la kalayso si loo aan loo maqalna wey taasuna taas wey